ururka fadhigiisu yahay Hargeysa SCCBRS ayaa kulan aqoon kororsi oo ku aadan ka hortagga tacadiyada ka dhex dhasha bulshada sidii si wada jir looga hortagi lahaa si wada jir bulshada qaybaheeda kala duwan kulankan ayaa wuxuu ahaa mid dood wadaaga tababarkan ayaa ahaa mid loo qabtay saxaafadda gobolka Awdal maadaama ay saxaafaddu tahay indhaha bulshada dadkana ugu wacyigelin lahaayeen tacadiyada kala gedisan ee bulshada ka dhex dhaca macallimada tababarkan bixinaysa ahna madaxa gobolka Awdal ee ururka CCBRS Fayse Sheekh Siciid oo ka hadashay goobtaasi ayaa sheegtay tababarkan kulli wuxuu daarnaa tacadiyada ka dhanka ah haweenka ay ama genderka waxay soo loo yaqaano rag iyo dumar labadaba uu noqon karaa waxyaabaha keena waxyaabaha uu ku yimaado waxyaabaha uu sababi karo waxyaabaha lagaga gaashaaman karo iyo waxyaabihii ka soo baxay outcomeska ka iman kara kulli tababarku ugu yaraa waan ka cudur daaranayaa inuu maalin kaliya ahaa waxaanu leenahay insha Allah hay'adaha iyo dhammaan inta daneeyayaasha inay kordhiyaan tababarada qaybta miidiyaha oo ah laf dhabarta dadweynuhu ay inta badan warka ka helaan kala suxufiyiinta gobolka Awdal oo iskugu jira rag iyo dumar oo ahaa ka faa'iideystayaasha seminaarkan ayaa iyaguna sheegay hay'adani CCBRS oo iyo walibana Fayse Sheekh halkan lagu soo bandhigtay 10 ballaaran aanu ka daba raacno si aanu hadhow tole media education uga sameeyno oo dadka awareness loo baanayo wacyigelintoodii looga tix raaci karo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa tababarkan inoo waday Fayse oo ka socotay ururka CCBRS aad baan ugu mahadcelinayaa runtii waxaan ka faa'iidnay waxyaabo aad u tiro badan ugu dambeyntii suduwa warfaafinta iyo wacyigelinta gobolka Awdal Abubakar Xasan Caafi ayaa sheegay in ugu soo bandhigtay sidii saxaafadda iyo ururkoodu ay u wada shaqayn lahaayeen isla markaasi ay waxyaabaha jira ee xaqiiqada ay ula jaan qaadi lahaayeen oo talaabo midaysan oo dhinaca saxaafadda iyo ururkan loogu talagalay CCBRS oo qabatay marka waxaan leenahay ka faa'iideysano iyadana aad iyo aad baan uga mahadcelinana waa madaxa ururka daryeelka badbaadada ee CCBS وعد رعفي تفق قرنك برما